السلام عليكم فضلاً كسروا قيبتا أفراد مخالدي أنو هالليي أريمها سرطانكا قيبتني وحاي نوغو بلا ميساسيدا anigoo wata magacii aqoonsi dalkale ayaan markii saddexaad gaaray dalka Itoobiya kadib duulimaad 8 saacadood ahaa bilihii ugu dambeeyay ee sanadkii 1970kii waxa aqalkiisa nagu casuumay wasiirkii garsoorka ee Itoobiya xilligaas dhowr daqiiqo uun kadib waxaa soo galay gabar gugii 25aad aan ku qiyaasay oo qoray iyo qalab ciidan ku joogta intayna salaantay ayay aabaheed dhabta u saartay qoragii kadibna gurigii ayay horay u gashay waxa ay galay shaki igu badnaa oo ahaa armaa lagu aqoonsaday inaad tahay Soomaali kaaga sii darane sargaal ka tirsan ciidankii nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed oo qorshaha ku joogo Addis Ababa dejinteeda iyo diyaarintiisa iska lahaa waxaan hubaa haddii in yar la ituhumo qoortayda dhinac la saarayo waanse u soo bareeray oo baryahaasi waxa igu weynaa qaran Soomaaliyeed qiimo gaarana ii lahaa intuu dhoola cadeeyay ayuu ugu yidhi gabadhaydan iyo qaar kale oo asaageeda ahba waxa ay dalkan u qabteen wax aysan jeelkanagu u qaban waayeen waxaana lagu dhigi doonaa baalasha taariikhda wax yar uun kadib inantii oo doorkan muujinaysa dumarnimadeeda ayaa soo dhigatay bannaanka cabitaan iyo haruubadii lagu fuudi lahaa hadal dheer kadib oo u badnaa haaraanka iyo hagardaamooyinka loo maleegayo dalkan aan u dhashay una dhaartay inaan u dhinto ayuu si xushmad ka muuqata uga codsaday gabadhiisii inay gaarigooda laadada ah igu qaado ina geyso funduqan deganaa iyo haddaan doonayo inaan xoogaa meermeero magaalada hadal dheer oo u badnaa haasaawo iyo hadal malagii galay ayaan weydiiyay halka ay heegan kaga jirtay waxa ay tiri jigjiga iyo dhulka ku heeran ayaan xilkeeda difaac hormuudkeeda ku jira haatanna fasax gaaban ayaan ku yimid oo waa aniga hubkii dhigay hadda anigoo qarsanaya ciilka iyo carada iga buuxda ayaan iri ma dagaal ayaad u joogtaan mise difaac kaliya intay qosashay ayay tiri xamar iyo xeebaheeda berbera iyo banka diyaaradaha dagaalka ilaa aan taabano waxaan ku dhaaranay inaanan qoriga dhigin haddaan dhimanana dhasheena ayaa qaadi doonta inta laga xaqiijinayo riyada qaranka Itoobiya intaan garabka gacan gacalbeeneed ka saaray ayaan ku yiri sawtii madaxdiina Afrika ku heshiisay xadku ka tagay gumaystaha dawlad kasta ha ku nagaato intay isoo eegtay ayay tiri dunida waa naga ogoshahay inaan qabiilka Soomaalida ee naga fallaagoobay aan xoog iyo xeelba ku soo ceshano waxaan ku idhi laakiin sida ay qoraayaashu taariikhdu wariyeen dadka Soomaalida ah waa qaar aan la loodi karin oo dagaalka ku daran naftuna aysan qiimo u lahayn haddii wax ay leeyihiin aan xoog looga qaadan karin waa qoom darane adiguna gabar qurux badan ayaa tahay yeysan naga kaadafine xoog isu ilaali anigoo ku laray dhoola cadays been ah ayaan daaqadii iska furay intay soo degtay ayay hore isii raacday ilaa aan ka gaarnay kadinkii fuduqii aan u hoyan lahaa habeenkaas waxaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa qaybtii afaraad aan uga hadlaynay macluumaadkii ku saabsanaa sirdoonkii Soomaaliyeed intaynu ka gaarayno kan midka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh